Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray kusoo dhawaada mar kale Somali Arsenal Fans TV. Akhyaaray haddii aad nagu cusub tahay fadlan videoga YouTube-ka subscribe noo saar haddii aad ila socotayna aad ayaad u mahadsan tahay. Akhyaaray waxaan kusoo jirnayba suuqa Arsenal iyo ciyaaryahanada ay doonaysa inay soo iibsato. Shalay waxaan kasoo hadalnay ciyaaryahankan Yeremy Pino, waxaana la sheegayaa wararka maanta ay sheegayeen in ay Arsenal lacag 33 milyan ay u bandhigtay Villarreal ay aqbashay lacagta 33 milyan ah. Kolka hore waxay ku rabeen lacag 65.5 milyan 60 iyo hayay ay ku rabeen ciyaaryahanka. Hase ahaatee markii runta la isku sheego oo la isku soo didigo ciyaaryahanka waan rabnaa lagu dhaho tiimka lacag cash ana miiska loo soo saaro horay kaaga iibinayaan. Marka warka maanta waxay sheegayeen ciyaaryahanka inay Arsenal gacanta ku dhigi doonto mar dhow lacagtii ay soo bandhigeen ay ka aqbashay Villarreal. Sidoo kale waxaan isna kasoo hadlaynay maalmahan Cody Gakpo xalay ayaan daawanayay PSV iyo Monaco isma lahayn PSV baa soo bixi doonto Arsenal meesha advantage iyo fursad bay ka heli doontaa ayaan islahaa. Hase ahaatee PSV xalay waxay awooday inay garaacdo Monaco oo ayna soo badiso gamekaas, waxayna finalka ay ciyaari doonaan gameka u dambeeya ee ay Champions League usoo qualify gareynayaan. Rangers ay la dheeli doonaan. Rangers oo ogtihiin waa tough team. Europa League daraad seasonka hadda dhammaanayay waxay imaadeen final ayay joogeen ayagii Frankfurt baa ku guuleysatay. Marka ciyaaryahankaas waxaa weeyaan waa hawshiisi waa kasii daraysaa. Wararkana maanta siday u badan yihiin waxay sheegayaan Arsenal inay ciyaaryahanka aadayso. Hase ahaatee ha rajeynin Arsenal inay ciyaaryahanka saxiixdo ama PSV ba ay ogolaatay ciyaaryahanka inay iibiso ilaa uu gameka Rangers uu ka soo ciyaaro oo ay arkaan inay Champions League usoo baxeen ama inay Champions League ay ka hareen. Marka laakiin wararka sida u badan yihiin maanta waxay sheegayeen in Arsenal ciyaaryahanka ay daba taagan tahay oo ayna doonayaan. Sidoo kale wararka aan filanaynin maanta waxaa ka mid ah oo arkay inay ciyaaryahankan Nikola Milinkovic oo difaaca ah Fiorentina u dheelo inay Arsenal ay lacag u bandhigtay. Fiorentina ayna ku doonaysa in ciyaaryahankan ay ku saxiixdo. Hase ahaatee Arsenal lacagta lagu soo celiyay waa la yaabay wararkan markaa arkay. Arsenal hadda optionada difaaca aad bay u fara badan yihiin. Gabriel, Saliba, Holding, White ayaa joogo. Marka waaba yaabayba Arsenal maxay u raadinaysaa difaac ma waxay iibin rabtaa Holding ma garanayo. Ciyaaryahanka ay Arsenal lacag u bandhigtay laguna soo celiyay. Sidoo kale ciyaaryahankan Pepe oo forward isna marna garab dheelo ayaa Arsenal la sheegay inay lacag iyaduna Porto ay u bandhigtay laguna soo celiyay lacagta oo lagu yiri ciyaaryahankan ma iibinayno. Marka arintaa waxay ku tusaysaa Arsenal inay suuqa active aad uga tahay wali suuq ay ku jirto. Sidoo kale arinta Tielemans ayaa iyaguna warar la yaab laga soo baxayaan oo ay leeyihiin Arsenal in ciyaaryahanka ay heshiis la galeen ayna doonayeen inuu seasonkan uu ciyaaro Leicester City dabeedna seasonka markuu dhamaado asagoo free ah Arsenal uu imaado. Wararka aad ay u soo baxayaan waana xiisadeeda ay leedahay waayo Arsenal waxaa laga yaabaa Arsenal waa ogtihiin sidoo madadaalada waa ku fiicantay in ciyaaryahanka ka waalan hadhowna uga baxaan. Marka ciyaaryahankan waxaa leeyahay Arsenal heshiis bay la gashay free bay rabtaa inay ku qaadato seasonka dambe. Waxay isweydiinayaan maxaa hadda 33 milyan aad u bixinaysaan waxaad ku heli kartaan ciyaaryahanka asagoo free ah seasonka dambe. Sidaan sheegnay in ciyaaryahanka Arsenal kaliya hadda ma ahane wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu Liverpoolna ay ciyaaryahanka ay raadinayso. Meesha marka Liverpool haddii ay soo gasho waa bis ciyaaryahankaas oo free noqday seasonka dambe oo Arsenalna Champions League u soo bixi weyday waa halis. Liverpool horu ka aadaya Arsenal uu uga baxaya hadduu rabo heshiiska. Hadduu rabo City uu iska aadaya oo Bernardo Silva inay iibso laga yaabo seasonkan iyaguna wararsa ay warwareegayaan. Marka ciyaaryahankan Arsenal waxa weeyaan waa si xun ay loo ciyaaraysa am fahanteen. Waxayna ku fiican tahay inay Arsenal hadda 33 milyan ay iska bixiso waayo isagoo free ah season fiicanna soo helay. Waxaa laga yaabaa inay team kale Champions League ku jiro ay ciyaaryahanka u soo bandhigaan heshiis
lacag fiicanna u sheegeen dabeedna Arsenal dhow iskaga tago. Marka wararka qaarna sida ay sheegayaan maanta isna waa arki doonaa halka uu ku dambeeyo. Sidoo kale Hector Bellerin ayaa representative-kiisa waxaa la sheegayaa inay joogaan England oo ay Arsenal kala hadli doonaan inay ciyaaryaha contractigiisa ay gooyaan dabeedna ciyaaryahanka free uu noqdo oo meel uu rabo uu aado. Maadaama hadda Arsenal aysan fasaxaynin tiimka kale ee soo codsadayna lacagtii ay ku rabeen inay ku iibsadaan ciyaaryahanka ay aqbali laadahay Arsenal ayaa maanta waxaa la rajeynayaa inay kala hadlaan ciyaaryahanka inay cancelaan contractigiisa ayna gooyaan sidaana free uu ku noqdo uu baxo. Sidoo kale isna Pablo Mari ayaa la rajeynayaa inuu weekend soo socdoba uu dhammaystiro bixitaankiisa Arsenal buugeedana laga tirtiro oo sida uu ku tago. Monzo ayaa ugu cadcad baa la leeyahay ilaa hadda Arsenalna waa wararka waa hadal ay isku fahmi laayihiin ayaa la sheegayaa. Monzo waxaa la sheegayaa in ciyaaryahanka ay ku rabto loan hadda dibna ay ka saxiixi doonto. Arsenal weli ay meesheeda taaganto ay leedahay maya ciyaaryahankan in laga iibsado qol ay dhaafiyo ayaan rabaa. Marka akhyaaray maxaa ka leedihiin maanta wararkaas Arsenal ciyaaryahanka yar ee hadda soo iibsanayso waxa weeyaan waa Spain ciyaaryahanada forward-ka garabka ugu fiican ayuu ku jiraa baa la leeyahay ciyaaryahanka. Kinogaas idin sheegay waa 19 sano jir. waxa weeyaan waa Liverpool ayaana daba taagan baa leeyahay wararka oo Liverpool ayaa meesha ku jirto iyadana ciyaaryahanka isha ku hayso inay Arsenal ka farmaroojisa isku dayeysaba. Marka maxaa ka leedihiin akhyaaray ciyaaryahanka Arsenal ee laga aqbalay lacagta ayna doonayso inay saxiixdo arrinta Tielemans sidee u aragtaan? Hector Bellerin waaba idinka tegayaa iyo ninkaas kale. Marka akhyaaray difaaca iyo Arsenal ay meelaha ka galgalaysan hadii adiga ma fahmine sidee u aragtaan? Intaaba commentiga nagula wadaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.